Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ninkii la oran jiray Buurmadow oo boqorkii isku sheegay Afrika oo dhan cid doorata lama arkee. Ninkaasaan rabaa maanta inaan ka hadlo. Haddii nagu cusubtiin subscribe-ka noo saara, haddii noo joogteen waa ku mahadsantihiin. Barnaamijka like-tana saara, meel dheer ayuu gaarsiinayaa. Haddaan ku sii socdo, boqor Buurmadow wax badan wuxuu joogay dibadaha oo wareegayay asoo ka baqay Muuse Biixi oo Muuse Biixina wax ka sheega warqad cafis ayaa loo diray, waa lagala hadlay maadaama doorashadii la gelayo. Buurmadow hadda waa soo degay hadal badan ayuu ka sharqamiyey. laaluushka ninka bixiya waa wuxuu yiri waa nin fiican oo geesiya. gabay ayuu akhriyay, nin horey u akhriyay. waa ka Muuse Biixi isagoo dhahaya 85 buu Maxamed Siyaab dhahayay dadkaas reer waqooyiga waxay rabaan inay Soomaalida kala jaraan. Siyaab bare dacaayado badan ayuu asan ka fiiriyay oo waxay doonayaan inay gooni u moostaan, waxay doonayaan inay ummadaha kale degan xaqaan. waa dadka laakiin Soomaalidu waxa ku sheegay hadalkiisa run buu noqda. maxaa yeelay waa ka Muuse dhahaya Itoobiya dhul siinayna, Itoobiya inaan raacnaan rabnaa. boqor Buurmadow wuxuu kale u sheegay laaluushka ninka bixiya nin fiican inuu yahay. laaluushkana waxaa la yiri oo diintu ay sheegtay inuu rishwo yahay oo xaaraan yahay, cadaabna lagu galo. boqor Buurmadow waa laaluushku noole. hadalkiisa waxaa ka mid ah sida tan, dhegeysi wacan. gobonnimadu waxay ku jirtaa inaad laaluush bixiso. innagu waxaynu yeelaynaa gabaygii Faarax Nuur, rag samaan ka samaan baan samaantow badiyaa, hadduu saakumi waayana sariiraan u goglaayo iska seexo idhaa, hadduu saakumi waayana caanihii hasha suubaan 3 jeer u lisaayo ku sariigo idhaa, hadduu saakumi waayana sumalkii rugta joogiyo sogob baan u qalaa, hadduu saakumi waayana gabar suurad wanaagsan baan suuradda ugu dhisaa, hadduu saakumi waayana seedow moodiyo salaantaan badiyaa buu yidhi. hadduu 9 jeer buu wuxuu bixiyey laaluush. gobonnimadu waxay ku jirtaa inaad laaluush bixiso. Buurmadow waxa uu sheegayo inuu ku noolaan jiray, hadda asaas saxiix u raadinaya. gabaygiina waad maqasheen. boqor Buurmadow laaluushka uu rabo hadda Muuse Biixi uu ka rabo waa laaluush uu rabo inuu ku dagaalgasho ciddiisa, reerkiisa oo boqor u yaqaana. inkastoo liya reerkana kama tirsano, aan maqlayay inuusan habar jecel u dhalan oo nin laisku haystay horey uu ahaa. boqor Buurmadow wuxuu haddana leeyahay waxa liigu tuhmayo ilaahay, waxay igu tuhmaysaan ilaahay micnihii iguma fashiliyo. hadalkiisa waxaa ka mid ah sida tan, dhegeysi wacan. boqor Buurmadow waxaan oran lahaa waa ninkaas warkiisa waa caddaystay. horta boqor Buurmadow mar dambe hadalkiisa garaad maqlayana ma jirto. awal waa nin waxaa islaahay weyne hadalkiisa hal dhegeysta.